shir aad u ballaaran oo looga hadlayay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka dhacay masjidka Abubakar Al-Siddiq Islamic Center ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. shirkani ayaa gundhigiisu waxa uu ahaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay sii ziyaadayaan falalka naxdinta iyo argagaxa leh ay isku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaasoo sababay inay u geeriyoodaan dhalinyaro aanan waxba galabsan. shirkani ayaa waxaa hadal wax ku ool ah ka soo jeediyey Sheekh Sacad isaga oo tilmaamay in ay dadka Soomaaliyeed ka buuxaan qabyaalad loona baahan yahay inay isnadiifiyaan. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, Sheekh Axmed Taajir iyo waxgarad kale oo gabi ahaantooda tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilalka foosha xun ay ku soo ziyaaday dhalinta Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa shirkaasi ka hadlay qaar ka tirsan hooyooyinka Soomaaliyeed iyaga oo tilmaamay sida ay uga damqarayaan dhibaatada, waxayna sii raaciyeen in xanuunka ugu horeeya ay taabanayso hooyooyinka. si kastaba ha ahaatee dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa sii ziyaaday bilihii lasoo dhaafay taasoo sababay isku imaashaha shirkan. isku soo wada duub miraha ka dhashay shirkani ayaa ah in la magacaabay guddi taasoo la rajaynayo in ay kulmaan dhawaanahan si loo helo xal wax ku ool ah. waxaana abaabulka shirkan lahaa Somali Action Alliance oo uu hormuudka ka yahay Mr. Shafi, wuxuuna sheegay inuu sii wadi doono dadaalka uu ugu jiro isu keenida waxgaradka Soomaaliyeed sidii ay u xalin lahaayeen dhibka sii ziyaadaya marba marka ka dambeeya. haddaba hadalhaynta ugu weyn ayaa ah shirkan ma noqon doonaa kii ugu dambeeyey ee soo afjara dilalka foosha xun ee loo geysanayo dhalinta Soomaaliyeed mise wuxuu raaci doonaa wadadii ay mareen shirarkii ka horreeyay. Cabdullaahi Xuseen Cabdi Macruuf, Minnesota.